السلام عليكم soo dhawaada asxaabta igu xiran Zainab Sheekhadan channel waxaan leeyahay soo dhawaada insha Allah galabta waxaan rabnaa inaan kasoo tuurano cabitaan maxaa la yiraahdaa oo maaragtay oo ka sameynayna saytuun iyo maxaa la yiraahdaa casriir oo ah dulshe ama cake sa oo taqaanin insha Allah taala marka soo dhawaada insha Allah waxaan rajeynayaa inaad caafimaad qabtaan meel walba joogta waxaan leeyahay soo dhawaada cabitaankeena ayaan maaragtay hawshiisa galeynaa meeshan soo jeedeen waxaan noo saaray saytuun aad u bisil ma sha Allah oo jilicsan oo waxaan ku qurux badan saytuunka maaragtay markuu saan u bisil yahay wadankeena markuu yaalo badana waxa ku jira cayayaan yar yar ayaa galo laakiin kan wax cayayaan ma lahan waa sidii maaragtay oo maaragtay asagoo beerta laga soo gooyay amal marka waa kaas asaas uu yahay aniga markaan wadanka joogay ma jeclaan jirin markuu saan jilacsaad u noqdo bislaado laakiin inta wax oo problema ma lahan wax ku dhex jira ma lahan waxaan ku dhahay fruit oo bislaata leh waaye insha Allah taala soo dhawaada saytuunka waxaan ku dhahay markii oo markaan u bisil yahay cabitaan inaba caadi ah oo rasiin ah oo waxa ka soo baxaya smooth amal oo noqonaya ma sha Allah ku soo baxaya marka insha Allah taala waa kaas asaas uu yahay waa soo kalin gareynayna meelaha madmadowga iyo maaragtay afkaas ayaan soo jaraynaa kadib insha Allah taala waxaan ku dhahay mala fiiqa isaga dhan waa la shiidaya insha Allah taala marka cabitaan qurux badan ayaan ka sameyn doonaa oo maaragtay kalarkiisa pinki amal u yahay ama basalisa oo taqaanid marka insha Allah taala soo dhawaada insha Allah asxaabay waa kaasa maxaa la yiraahdaa saas uu yahay markii aan soo jarjarnay pinki ama gaduud xogaa uu xigaa laakiin markii cabitaan ahaan loogu shubo bakeeriga ama loo soo saar miiska wuxuu ekaanayaa basali insha Allah taala marka waxaan leeyahay soo dhawaada saytuunka aad u maaragtay caafimaadka ugu fiican yahay waa fruit somahan oo maaragtay maaragtay oo Ilaahay sideeda maaragtay oo noogu beeray oo aad u macaan sidiisa xataa waa lagu cunaa saytuunka markuu saan u bisil yahay inaba caadi maahan aad u macaan badan yahay marka insha Allah taala intii saytuunka maaragtay oo xiiseysa oo aniga ku jira waxaan leeyahay hadda waa kaas laga faa'iideysto anaga hadda waqtiga saytuunka lagu jiraa wadankan saytuunka aad u suuq u yaala insha Allah taala marka hadda waxaan sameynaynaa waxaan ku dhahay maadaama aan jarjarno waa shiideynaa insha Allah taala sidoo ku soo bax kalar ahaantiisana waa arki doontiin insha Allah asxaabay insha Allah marka waxaan leeyahay asxaabay hadii oo gadaal ka maqleysin backgroundkeena sawaxan waxa waaye insha Allah taala barxadda kor ayaa waxa lagu ciyaaraa ilmo banooni ku dheelayaan ama kubad marka insha Allah taala karaale noqda insha Allah dabaqaan deganahay dad maaragtay Soomaali kala degan marka ilmahooda aaday marka sometimes ciyaarta u jecel yihiin soo marta kor ay ku ciyaaraan qeyladu intay soo gaaraysaa sometimes saas ay ugu dhacdo marka insha Allah karaale noqda hadda doolshadii ayaan soo saareynaa insha Allah doolshadeeni ama keegeeni waa kana asagana casriyaha keega sidaan u qasay sidaan u bilaabay kulli aniga doolsho badan anoo sameynaa waa ku jira channelkayga haddii aad ka heshay kalarkayga sidoo uu igu soo baxay aniga insha Allah taala waxaan ku dhahay codsiga waa ku tixgelinaa insha Allah qofkii xiiseena waa u soo sameynaya bilow ilaa dhamaad waxaan leeyahay soo maaragtay comment igu soo qora insha Allah waa kaasa markii la soo jarjaro kalarka dhexdiisana waa arki doontaan insha Allah asxaabay doolshada waxaan ku dhahay ilmaha markay iskoolka imaadaan galabtii ama dugsiga iyo juuskan hada isku siisid ma sha Allah xaraadkii daalkii iyo maaragtay wuu ka baayaa maaragtay aad ugu fiicay ilmaha cabitaankii shiidan xagga noo saaray insha Allah marka doolshado kale ilmaha maaragtay haday ku bartaan ma sha Allah inaba caadi maahan sokorta baad ka yareynaysaa inta kale waa ukun iyo maxaa la yiraahdaa caano iyo maxaa la yiraahdaa burle marka insha Allah taala caafimaadkiisa aad u fiican yahay doolshada suuqa ka soo gadaysid oo bacda sajalka ama dad soo sameeyeen oo kale midka aad gurigaada ku sameysata ayaa ka caafimaad badan marka insha Allah isbuucii mar ama laba mar ayaa looga soo tuura ilmaha waana wax adiga aan ka qaadin 15 daqiiqo ayaa ku sameyn kartaa hadii aad haysatid maaragtay burkay ama doolshada bahasha lagu garaaco mashiinka hadii kale gacantaada ku qasan kartaa qaada ku qasi kartaa marka ama maxaa la yiraahdaa kan lagu garaaco kunta ayaa ku sameyn kartaa inkastoo xoogay ay ku qaadanayso waqti dheer marka insha Allah taala ka faa'iideyso waxaan asxaabteeda soo dhawaada waa soo diyaarinayna hadda insha Allah saxaabay waa kaasa cabitaanka haday soo idimashii pinki ku soo baxaa midnimo kalarkiisa amal oo xoogay cad laakiin maxaa la yiraahdaa saytuun amal oo saad u ekeen marka insha Allah taala waa kaasa isbuunya waa doolshadeena saas u egtahay yar iyo weyn qofkii rabo uu cuni karaa marka insha Allah taala sidaan u sameeyay hadii aad maaragtay xiiseynayso waan soo gelinayaa oo commentiga igu soo reeb insha Allah taala
waxaan leeyahay daawasho wanaagsan oo wacan janaalkiina waaye asxaabay kor ha loo qaado ha lasoo kala kiciyo aad u mahadsantihiin meel boo joogteen caafimaad qab wanaagsan ayaan idin rajeynayaa waxaan leeyahay insha Allah tacaala dadka muslimiinta oo walaalaheena Falastiin gaar ahaan Ilaahay waxaan ugu baryaynaa inuu dhibta ka dulqaado inkastoo maanta ugu dambeyn xoogay nabad la qaatay laakiin insha Allah waxaan u rajeynaynaa sida anaka aan nabad ugu noolnahay oo maaragtay farxad ugu noolnahay oo cidna maaragtay aysan ugu dhaganeyn in ayagana Ilaahay uga fajiyo ummadda daba dhigatay insha Allah tacaala waa u duceynaynaa meel walbaan joogno insha Allah tacaala waatii oo dhahayna Maxamed sallallahu alayhi wasallam dadka muslimka ah waxay leeyihiin hal jir ama maxaa la yiraahdaa waxaan ku dhahay qofkan markii qof wax gaaraan oo muslima qofka kale walaalkiisa jirkiisa camal asoo wax gaar waayo waa u damqanaysaa marka insha Allah tacaala hal wad maaragtay waxaan leenahay hal jir waa ka damqanaynaa wax walba oo qof islaam meel uu kasto joogo oo ku dhacay aad ayaan maaragtay Ilaahay uga baryeynaa inuu dhibta ka dulqaado insha Allah tacaala inuu u duceynana waa nagu waajib ileen waxa waaye waa tii naloo sheegay inaan nahay walaalo marka dadka islaamka waa walaalo oo maaragtay oo diinta Ilaahay ku walaaloobay ayaan nahay marka insha Allah tacaala waxaan leeyahay dadkeena Soomaaliyeed Ilaahay nabad iyo barwaaqo ha siiyo insha Allah tacaala asxaabay waxaan leeyahay soo dhawaada hadda waa kaasa janaalka maaragtay videogeeni waa kas qurux badnaa saas ayuu maaragtay noogu soo baxay qudaaraha laga faa'iideysto cabitaanada maaragtay oo boodharka oo la qasqasaayo waxaa ka fiican fruutka haddii aad heli kartid markaas mar wadanka joogto waxaa ku soo badanaya qudaaraha marba midaas soo baxsamaan mar babaaya iska soo go'ayo mar qara iska soo go'ayo mar waxa iska soo go'ayo saytuun mar waxa iska soo go'aysa avocado anaga hadda waqti avocado ku jirno waayahan dhan avocado-deena aad u yartahay laakiin way taalaa iyadoo badnayn saytuunka ayaa hadda wuxuu noo ahaa maasha Allah zaid meel walba aad ku arkaysaa oo yaala marka insha Allah laga faa'iideysto insha Allah tacaala anaga dad Soomaaliyeed aan nahayne dad reer qudaaraan nahay Soomahan oo maxaa la yiraahdaa qudaarta nooc walba inoo baxdaa maasha Allah avocado intaan ka ilaado wadankeena way ka bixisay maaragtay insha Allah ayadana waxaan rajeynaynaa dad beero oo maaragtay aqoon-yahano ah oo maaragtay wadaniyiin ah inuu Ilaahayna siiyo insha Allah tacaala wixii kasta oo la beero oo la isku taxalijiyo way soo baxayaan marka dadaal leh waaye insha Allah tacaala insha Allah dad oo aqoon-yahano Ilaahay maaragtay oo maaragtay wadanka wax ka qabto Ilaahay ha u soo bixiyo oo anaka koow ka nahay oo maaragtay anigan hadlaayaan ku jiro oo la iga baahan yahay inaan maaragtay wadankeyga meel uga soo baxo day waad ku dhalatay insha Allah inaad ku dhimatana waxa rabtaa dadka oo dhan waxay rajeynayaan inay wadankooda markii waqtigooda soo gowgow ay joogaan Soomaan insha Allah tacaala anaka qurba joog Ilaahay nama dilo insha Allah tacaala aniga saasaan jeclahay insha Allah tacaala waxaan leeyahay asxaabay hadda waa ka muuqaalkeena quruxda badnaay intaas ayaan kusoo gabagabeynayna waxaan leeyahay insha Allah tacaala video intaan kulmi doono asxaabta igu xiraan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu comment share xaqiina waa la idin sheegi ma insha Allah tacaala sidaas iyo nabadgelyo